xaaladda bariga dhexe ayaa marba marka dambaysa kasii daraysa iyadoo ru ahaantii iminka ay soo dhex galeen madaxweynaha wadanka ruushka Putin oo isagu markaasi tii toosa ula xidhiidhay hogaamiyaha markaasi Israa'iil Netanyahu waxaana uu sheegay inuu dhexdhexaadin uu ka bilaabi doono labada dhinac isla markaana xaaladda dejiyaan arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo duqeymihii ugu badnaa ay ku dhaceen dalkaasi Iiraan taas oo ru ahaantii ay Israa'iil ku beegsanaysay xarumo iyagu markaasi muhiim u ah dalkaasi Iiraan gaar ahaan qaybaha nukliyaarka oo ay ku kaydsan yihiin halkaas oo qaraxyo laga maqlayo maanta rag badan oo iyagu markaasi saraakiilana laga dilay maalnimadii shalayto tani waxa ay keentay in gebi ahaantooda xiisadu ay cirka isku shareerto waxaana aad ay uga samri laayihiin dadka iyagu markaasi reer Iiraan iyo waliba dowladdaasi in gebi ahaantoodba dilkii Xuseen Salaami oo ahaa taliyihii ugu sarreeyay ee ilaalada kacaanka islaamiga marka la soo gaabiyo la yiraahdo ERGC lagu dilay weerarkii ay Israa'iil ay qaaday maanta oo Jimco ah waxaana ay noqonaysaa hogaamiyihii ugu sarreeyay Iiraan oo weerarkaasi lagu kharijiyo hogaamiyahan ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa 65 jir waxaana uu yaqaanay inuu ahaa nin aad iyo aad u mowqif adag isla markaana cadowga si aada ula hadla Iiraan ayaa ku dhaaran jirtay waxaana uu gaar ahaan si aada isaga difaaci jiray oo ay aad cabsi weyn u gelin jireen Israa'iil iyo Mareykanka bishii hore ee la soo dhaafay ayaa waxa uu si cad u sheegay in uu furi doono albaabada jahannama waa sida uu hadalka u dhigay haddii la soo weeraro hogaamiyahan oo ahaa mid isagu mayal adag oo ku dhiirada hadallada ayaa la kharajiyay Israa'iil waxa ay qaaday tallaabooyin fara badan oo weerar ka dhan ah Iiraan iyadoo in ay ku bartilmaameedsadeen xarunta nukliyeerka warshadaha gantaalada ridada dheerida oo ay ku keedsan iyo waliba goobaha saraakiisha militariga taasina waxa ay dabka ku sii shiday in markaasi Iiraan ay u diyaar garowdo dagaal culus saraakiisha sarsare ee Iiraan waxa ay ku goodiyeen in aysan mahadin doonin Israa'iil ayna noqon doonaan meel lagu baabao waxaanu qaadi doonaa tallaabo kasta oo aanu doonayno in aanu ku aargoosano weli hawshu kowmaha Tehran ayaa ku hanjabtay in Israa'iil iyo Mareykanku ay beeniyeen ku lug lahaanshaha weerarka ayna bixin doonaan ciqaabtii ugu cuslayd ee ka dhalan doonta weerarkaasi taas oo ay kor u qaaday cabsida gobolada iyo dagaalada gobolka dhexe dhammaan waxaa heegan la geliyay isla markaana aad looga feejignaaday tallaabada ay qaadi doonaan Iiraan oo ilaa iminka loo dhabaxaarayo Israa'iil gebi ahaantoodba shacabteedii cusbitaaladii goobihii markaasi iyagu muhiimka ah diyaaradihii goobaha yaaleen dhammaantoodba waa la daadgureeyay hogog iyo goobo muhiim ah oo qarsoodi ah ayaa lagu riday waxaana cabsi laga qabaa in gebi ahaantoodba Iiraan ay isticmaasho hubka nukliyeerka taas oo ru ahaantii saameyn weyn ku yeelan doonta caalamka wadamo badan oo caalamka ayaa aad u hadalhaya cabsi weyn laga qabaa xaaladda ka dhalan karta weerarada ay Israa'iil ku qaaday dalkaasi Iiraan Turkiga ayaa isagu dhankiisa waxa uu sheegay in gebi ahaantoodba arrinta tan dagaalka ahi ay tahay dandaansi dadka arrimaha siyaasadeeya ee aad u falanqeeya waxa ay sheegeen haddii laga takhaluso Iiraan oo la baabi'iyo in lagu soo jeesan doono quwadda koowaad ee muslimiinta oo ah wadanka Turkiga taas oo loo soo dhabaxaarayo iyadana markaasi lagu xijin doono laakiin Turkigu aad ayuu uga baaraandegayaa arrintaasi lana ma garanayo xaaladdu waxa ay ku dambeyn doonto balse waxa isha lagu hayaa caalamka oo dhan ay eegayaan inkasta oo Mareykanku aad ugu goodiyay una sheegay in gebi ahaantood Iiraan haddii aysan wada hadal bilaabin ay noqon doonaan meel beri hore inay cidiganaayeen iyo in kale laga dhigi doono Iiraan dhankeeda iyadu waxa ay isha lagu hayaa jawaabta ay ka bixin doonto ma ridi doontaa hubka nukliyeerka ee ay ku goodinayso mise tallaabo kale ay qaadi doontaa wixii jiraba waqtiyada fooday nagu soo hayaa ayaynu eegi doonaa ee isha ku hay mar walbana la soco wararkii ugu dambeeyay
ee kasoo cusboonaada bariga dhexe.